kulanti wacan saaxiibayaal, halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Farmaajo war culus ka soo saaray xilka qaadista Xijaar iyo Jeneraal Oduwa oo wadada kusoo jirta. Xasan Sheekh oo caqabad kala kulmay arrin ay horay uga guuleysteen xukunkii nabad iyo nolol. Ciidamo la soo dhigay jidadka Muqdisho iyo xogihii ugu dambeeyay ammaanka caasimadda ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqayn doonaa. balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. aynu ku bilownay madaxweyne Farmaajo ayaa war culus ka soo saaray xilka qaadista Xijaar iyo Jeneraal Oduwa xilli xaaladdu mar kale ay isbedelayso. madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xilka qaadistii dhawaan lagu sameeyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Maxamed Xasan Xijaar iyadoo lagu bedelay inuu dhashay beesha ogaadeen oo la yiraahdo Sulub. Farmaajo ayaa wax la yaab ku tilmaamay in dowladda mas'uuliyiinteeda ay baalmarayaan habraaca awood qaybsiga beelaha ee ku saleysan 4.5 maadaama sida uu sheegay dalka ilaa hadda uusan ka gudbin nidaamka awood qaybsiga beelaha. haddana u muuqato sida uu sheegay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo inay ku saleynayaan xukunka iyo awood qaybsiga nidaamka xisbiyo. wuxuuna sheegay in hadda aysan jirin nidaam xisbi oo ka hana qaaday waddanka, balse si koox u muuqata ay dowladdu qaybinayso sida uu ku tilmaamay xilalka ugu muhiimsan ee dowladnimada federaalka Soomaaliya. Farmaajo ayaa si cad u sheegay in taliye Xijaar wax weyn uu ka qabtay waddanka intii uu taliyaha booliiska ahaa, isagoo sheegay in ay mudnayd in ninkan lagu tixgeliyo aqoonta, khibradda, aragnimada siyaasadeed iyo mid ciidan oo uu leeyahay, maadaama aysan jirin sida uu tilmaamay nin beeshiisa ah ama beelaha kale ee daarooda ee kursigaas lagu bedeli lahaa. bal waxa uu sheegay in nin u dhashay ogaadeen uu la wareego kursigaas ka dhigan tahay in dowladdu ay soo koobayso iyada iyo xisbigeeda Jamhuuriyadda baahinta xukunka dowladnimo ee dalkan Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in ninka lagu bedelay Xijaar ilaa Sulub uu sheegay inuusan ahayn nin ku wanaagsan hogaaminta taliska guud ee ciidanka booliiska dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo sheegay in khibrad ahaan iyo awood ahaanba uu ninkaas u diyaarsan hogaaminta ciidankan awoodda badan ee heer federaal oo muddo ka badan 20 sano ka jira dalkeena Soomaaliya. waxa uu wax la yaab ku tilmaamay habdhaqanka xukunka Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxda Jamhuuriyadda, isagoo sheegay in boob qaawan ka socdo waddanka, tanina ay mar kale madaxa isu gelinayso beelaha Soomaaliyeed oo markii hore ku galgabanayay nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 balse hadda ay muuqato in dowladda ay fasaxday xuduud ay beelaha isugu xadgudbaan, isugu awood sheegtaan, isuguna faanaan xukunka dowladnimo iyo sharka dowladda. wuxuuna ka dalbaday in dowladda ay bedesho istiraatiijiyadeeda siyaasadeed ee ku aadan magacaabista xilalka iyo in ay xakamayso heshiiska bulsho ee u dhexeeya guud ahaan dadka Soomaaliyeed, maadaama uu yahay xeyndaab ama hangool lagu kala celinayo Soomaali si aysan mar kale dhiigooda isugu daadin dhexdooda oo 30 sano ay gudahooda dagaalamayeen. sidoo kale Farmaajo ayaa ka hadlay xilka qaadista qorsheysan ee la filayo in lagu sameeyo taliyaha ciidanka xoogga Jeneraal Oduwa. wuxuu ugu baaqay madaxda qaranka in maadaama ay ku fududaadeen xilka qaadista Xijaar mar kale aysan ku fududaanin xilka qaadista taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoo si cad u sheegay in arrintani ay tahay tallaabo weeqi karta horumarka iyo sidoo kale guulaha isdaba ee laga gaaray dagaalka dhanka kooxda hubeysan ee Al-Shabaab. waxayna hadda u muuqataa in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu taageersan yahay sii joogista Jeneraal Oduwa ee xilka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. kasoo Farmaajo mas'uuliyiin badan oo bartay arrimaha ciidamada iyo sidoo kale istiraatiijiyadda dagaalka ayaa ugu baaqay Xasan Sheekh Maxamuud inuusan ku fududaanin xilka qaadista Oduwa oo kala kulmi karo cawaaqib xumo weyn oo soo wajahda ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ee dagaal kula jira kooxda Shabaab, maadaama taliyaha cusub ee la keeni doono ay muddo ka qaadan doonto la qabsiga taliska iyo howlgallada ay wadaan ciidanka. wuxuuna taas beddelkeeda ay sheegeen dadka falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha amniga in dowladda aysan ku fududaanin eriyada Jeneraal Oduwa oo jaanis la siiyo inta ka dhiman howlgallada dalka looga saarayo kooxda hubeysan ee Shabaab.
Odawa Yuusuf Raage ayaa hadda ka dambeeya saraakiishii la soo shaqeysay Farmaajo, qaarkood waa la dilay, qaarkoodna xilalkii dowladnimo ay hayeen ayaa laga qaaday. Dhinaca kale, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caqabad kala kulmay arrin ay horey ugu guuleysteen xukunkii nabad iyo nolol iyaga ka horreeyay, taasoo ah bumbuuninta arrimaha waaweyn ee qaranka iyo dowladnimada Soomaaliya. Shalay waxaa Muqdisho laga daafuray mashruuca barwaaqo oo ah barnaamij horumarineed oo uu Bangiga Adduunka ku maalgelinayo $70 milyan oo lagu horumarinayo reer miyiga, deegaanka, beeraha iyo xoolaha Soomaaliya. Shalay waxaa Muqdisho ka furmay shir u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo goboleedka bulshada Bariga Afrika oo laga hadlayay hanaanka xaqiijinta xubinimada Soomaaliya ee East Africa Community. Dhawaana ururka caalamiga ah ee duulista hawada ayaa sheegay in uu heerka hawada Soomaaliya u aqoonsatay Class A, oo ay sida Soomaaliya ay uga gudubtay darajada ugu sareysa ee maamulka hawada sare, halka ay horey ugu jirtay heerka ugu hooseeya ee Class G. Waa 3 war oo waaweyn oo ay ahayd in warbaahinta qabsadaan iyo horumaro dhab ah oo ay Soomaaliya ku tallaabsatay, balse ma aysan helin tabinta iyo baahinta ay mudnaayeen, oo dad badan war uma hayaan guulahaas ay dalka u soo hoysay dowladdan hadda jirta. Wargelinta muwaadinka iyo in shacabka looga warbixiyo waxa dalka socda waa habka ugu fudud ee lagu hanan karo qalbiyada dadweynaha, waana tabtii ay adeegsan jirtay dowladdii madaxweyne Farmaajo oo si weyn loogu tilmaamay inay ahayd dowlad u dhagan nugul shacabkeeda, markastana si qalbiyana ula hadli jirtay. Xukuumadda hadda jirta waxaa ka muuqata caajis badan oo waxa ay u daalan tahay sidii dowlad 4 sano joogtay oo hadda xilka sii degaysa. Dowladdii Farmaajo waxay ku guuleysatay in ay taageero dad badan ku hantaan qab iyo sidoo kale guulo waaweyn, halka ay dowladdan ku fashilantay in ay shacabka uga warbixiso guulihii ay Soomaaliya ku tallaabsatay. Waxaa tusaale nool ah in 3dan dhacdo ay ahayd in warbaahinta qabsadaan oo dhegta muwaadin kasta ee lagu dhibciyo, balse ay ka hadal iyo sidoo kale tabin badnaayeen warar iyo dhacdooyin aan sidaas waaweyneyn. Waxayna hadda muuqdaa Xasan Maxamuud iyo kooxdiisa inay ku fashilmeen baahinta guulaha dowladda iyo waxyaabaha dadka ay u baahan yihiin, halka waxyaabo kale ay ku mashquulsan yihiin. Ugu dambeyntiina, ciidamada ayaa lasoo dhigay waddooyinka magaalada Muqdisho xilli xaalad amni darro oo weyn ay soo korortay oo la xiriirta in Muqdisho ay ku soo fogan yihiin weeraro qaraxyo oo ay geysan karaan kooxda hubeysan ee Al-Shabaab. Waxaana lagu arkayaa maanta waddooyinka Muqdisho ciidamo ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda, kuwaas oo baaritaano kala duwan ku sameynaya baabuurta dadweynaha, kuwa shacabka ee bajaajka loo yaqaano, iyo sidoo kale baabuurta xarumaha ganacsi laga leeyahay. Waxaana la sheegay inay tahay xaqiijinta ammaanka magaalada Muqdisho. Guud ahaan saaxiibayaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. Tan iyo kulan dambe waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.